بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. وكتاب كيني ولا ليال عقيدة المسلمين أو سؤالها يجوابها ككومنا. سؤال: ما حكم نداء النبي نبي الله دواق حكم كي سوا محي أو ولي ولو كان هباء هذا قائما مدمقا أو طلب شيء أما شيء لقد طلب منه حقيسا لم تجري به العادة عادة يوم تقانا دقن كؤسا كدورين. جواب: يجوز وحا بنان ذلك أرنكا وبنان تهي نداها لورد واقع النبي أما ولي أساقو حتى كامقا محايلي لأن مجرد ذلك أرنكاس ارتركيس لا يعد لغمتري عبادة عباده لغير الله إله غير كيسا، وليس معها مجرد قول يا رسول الله. haddaad tidhaahdid yaa rasuula allahi ishraakan billaah, ilaahay adoo u shariigiya ilay macnaheedu maaha. waqad habata waxaa sugnaaday oo daliil u ah anna bilaal ibna alxaaris almusaniy ee reer musani ahaa ataa qabra rasuuli, rasuulka qabrigiisuu imaaday caama ramaad sanadkii dambaska. waa sanad amaar xun ay dhacday ayaama cumara, sayd cumar maalmihiisiia khilaafada u hay. faqaala wuxuu yidhi: yaa rasuula allahi, rasuulki ilaahayow, istasqi liummatika ummadaada u waraab dalab, fa inahum qad halakuu waa halaagsameen. nebiguna waa dhintay calayhi salaatu wasalaam. rawaahu lbayhaqiyu, alimaamu lbayhaqi baa wariyey xadiiskan iyo wakayrahu qayrkiisba. falam yunkir mausan inkirin calayhi dushiisa cumarun cumar atharkan oo sayd bilaal ma uusan inkirin, walaa kayrahu qayrkiis, bal istaxsanuu waa wanaajisteen ficlahu falista uu sameeyey arrinka. qaala tacaala, ilaahay ayadiisa u daliila: walow annahum ayagu id dalamuu hadday dulmiyaan anfusahum nafafyaalkooda oo jaa-uuka ay ku yimaadaan nebi muxamedow oo fastakfaru llaha, ilaahay dembi dhaaf a uga dalabtid, wastakfara lahum rasuul, rasuulkuna dembi dhaaf uu u dalbo, lawajadullaaha waad helaysaan ilaahay agtiisa way helayaan tawaaban inuu yahay ilaahay mid toobadda aqbala, raxiiman oo naxariista. suuratu nisa. wathabata waxaa sugnaaday oo kale anna ibnu cumara qaala inuu yidhi: yaa muxamed, nebiga magiciisa uu dhawaaqay. haddaa yaa muxamed aad tidhaahdid ama yaa rasuula allah, dhibaato ma lahan walaalayaal, mana aha nebiga in la caabudayo calayhi salaatu wasalaam. lamaa xadirat rijlahu, lugtiisii markay xanuunsatay buu nebiga u dhawaaqday. rawaahu lbukhaariyu, bukhaari baa wariyey fi ladabi almufrad. waa saa marka loo dhawaaqdo nebi ama weli, haba kaa maqnaadee cibaado ma aha walaalayaal. saan cibaadada usoo tacriifinay, cibaadada macnaheedu taas waay. su-aal: maa xukmu nidaa'i nabiyi, nebi dhawaqiisa xukumkeedu waa maxay? oo weliyin weli dhawaqiisu loo dhawaaqa waa maxay? walow kaana haba ahaado qaa'iman mid kaa maqan, aw dalabu shay ama shay a ka dalabti minhu xaggiisa lam tajri bihi alcaada, caadada iyo dhaqanku uusan ku dureerin. markaa leedahay ilaahu nebi maxamed fadligiisa waxaa igu sii, sheekh habel fadligiisa waxaa igu sii, ma ahan xaqiiqatan inaad baryaysid weliga iyo nebiga, laakiin waa sabab waaye iyo musabab. laakiin xaqiiqada ilaahay baa baryaysaa subxaanahu wa tacaala, asaga annaaficu addaari ah oo wax walba dhiba, wax walbana qof ka siiya. yajuusu waa bannaan tahay daalika arrinkaa, lianna mujarada daalika arrinkaas laa yacudu laguma tiriyo cibaadatan cibaado ligayri illah, walaysa mujaradu qowli yaa rasuula allahi ishraakan billaah, ilaahayoo loo shariig yeelay ma aha haddaa dhahdi yaa rasuul allah. waqad habata waxaa sugnaaday anna bilaal ibna alxaaris almusaniy baa tegay qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam sanadkii dambaska, waa maalmihii cumar. markaasuu nebiga qabrigiisuu dul istaago, wuxuu yidhi: rasuulkii ilaahayow, ummadaada u roob dalab, way halaagsameene. sayd cumar ma uusan ku inkirin iyo qayrkiisba, bal ficilkiisa waa wanaajisteen, siduu ilaahay ayadiisa ku leeyahay: walow annahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka fastakfaru llaha wastakfara lahum arasuul lawajadu llaha tawaaban raxiima. waxaa kaloo sugnaaday cabdullaahi bni cumar in lugtiisa uu ka xanuunsaday, cudur uu kaga dhacay, markaas uu yidhi: yaa muxamed, markii lugtiisii xanuunsatay. alimaamu lbukhaari baa fi ladabi almufrad ku soo naqlinay. ma waxaan dhihi karnaa marka saxaabadu nebigu waxay samaynayaan waa shirki? laa, shirki ma ahan. haddaa dhahdi saxaabadu hadalladan ay ku dhawaaqayaan waa gaalnimo, waxaa ka dhalanaysa nebigaa baray, marka nebiguna ma shirki buu ku jiray? falciyaadu billaah. laakiin waa masaa'il diinteenna islaamka ku bannaan walaalayaal. saa ogaada. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.